Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacday doorashada kursiga tirsigiisu yahay Eber 58 oo ay ku loolameen ilaa 7 musharax oo ay ka mid yihiin agaasimihii hore Nisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe iyo madaxweynihii hore Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble. Doorashadan ayaa lagu kala baxay wareegga koowaad kadib markii Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo qaybo ka mid ah madaxweynaha baarlamaankii 10aad ku fadhiyay kursigan uu ku guuleystay maadaama uu helay ilaa 54 codood. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed ee Hirshabelle Maxamed Xuseen Maxamed ayaa sheegay in aan loo baahnayn wareegga labaad maadaama Sambaloolshe uu helay codad gaaraya ilaa 51 cod. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa sheegay inuu dadejinayo doorashada kuraasta ku dhiman si ay ugu biiraan dowlad goboleedyada kale ee soo afmeeray doorashada xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kursigan waxaa horey ugu fadhiyay baarlamaankii 10aad Nuur Iido Bayle oo isagana ka haray inuu u tartamo kursigani.